Your Excellency Sali Work Zodi, President of Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, Presidents, Prime Minister, Head of State and Governments, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and privilege to be attending Ethiopia's grand marti sharafta mudanayaal iyo marwooyin farxad iyo sharaf weyn ayay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan weyn ee ahmiyadda bulsho oo weyn u leh Itoobiya khibrad dhaxalgalana ay ka dhaxlaan jiilalka kala duwan farxad ayay inoo tahay in maanta arrintan aan ugu dabaaldegayno magaaladan quruxda badan ee Addis Ababa waxaan u hambalyeeynaa dawladda iyo shacabka Itoobiya ee uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dadaalka ay ku bixiyeen dib u soo celinta munadan qaran dib u soo celinta qasrigan taariikhiga ah waxa uu astaan muhiim u yahay isbeddelka ballaaran iyo guulaha ay Itoobiya ku tallaabsatay dib u soo celinta qasrigan taariikhiga ah ayaa runtii ah mid macno ballaaran ku fadhiya waa sharaf in dhismahan uu xambaarsan yahay taariikh iyo naqshada casriga ah ee sida cajiibka ah dib loogu casriyeeyay dib u soo celinta dhismahan waxay inoo sheegaysaa dhammaanba muhiimadda ay leedahay dhowrista dhaxalka taariikhiga ah iyo inaan caalamka iyo nafteennaba la wadaagno taariikhdeena hodanka ah Itoobiya waxa ay ahaan jirtay siina ahaan doontaa madal ganacsi iyo dalxiis ahaan ay u tagaan dadka Soomaaliyeed labada dhinac waa inay ka faa'iideystaan fursadaha ay labadeena dal leeyihiin midaasi waxa ay sii xoojinaysaa dadkeena xiriirka isdhexgal bulsho ee labada dal mashaariicdan sida dib u soo celinta qasrigan taariikhda qaranka Itoobiya iyo kuwa kaleba waxa ay runtii gacan ka geysan doonaan qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha ee Itoobiya iyada oo la xoojinayo laguna horumarinayo dalxiiska and this is made much easier by the daily direct flights of Ethiopian Airlines for which we are grateful dhinacayaga waxaa naga go'an dhiirigelinta dalxiiska dalkeena ee nagala dhaxeeya dalalka kale midaasi oo ay qayb ahaan fududeeyeen duulimaadyada tooska ah ee maalin iyo habeen ay sameeyaan diyaaradaha ay ka mid ka tahay Ethiopian Airlines aad ayaan idinkaga mahad celinayaa midaas dalxiisku waa tiir ka mid ah horumarka dhaqaale oo horseedi kara abuuritaanka shaqooyin badan kobcinta iskaashigeena iyo hal abuurka mashaariicda dib u soo celinta sida qasrigan qaran waxa ay fursad u tahay koboca dhaqaalaha iyadoo waliba loo dabaaldego taariikhda shacabka Itoobiya waxaan mar labaad u hambalyeynayaa dawladda iyo shacabka Itoobiya guusha weyn ee ay gaareen waxaan ku xaqiijin karaa in aniga iyo wafdigayga ay naga go'an tahay inaan u adeegsano dabaaldegan si aan u horumarino iskaashi dhaqaale oo ballaaran gaar ahaan dhanka dalxiiska waad mahadsantihiin dhammaantiin